gaarnay cashirkeeni saddexaad. cashirkan saddexaad waxaan uga hadli doonaa insha Allah law of independent assortment. Law of independent assortment waxa waaye waa marka ay sameysmayaan marka geniska ama waxyaabaha alleliska ah ayaa waxay sameynayaan in ay kala baxaan si oo mid walba iskiisa oo random ah ay u kala baxaan ayay sameynayaan. gudaha ayaan ku arki doonaa insha Allah wixii faahfaahin ah. arday cashirka marka aan dhameeno waxaad awood u yeelan doontaan in aad sharaxaad ka bixisaan law of independent assortment maxaa laga wadaa. sidoo kale waxaad awood u yeelan doontaan in aad ku dabaqdaan oo aad ku fulisaan lowgan marka la sameynayo crossingka la isugu sameynayo dihybridka iyo trihybridka iyo wixii ka badanba in aad ku fulisaan oo aad ku dabaqdaan ayaad awood u yeelan doontaan insha Allah. markii Mendel uu bilaabay marka experimentiga uu sameynayay wuxuu diraaseeyay marka wax ka badan laba sifo iyo wax ka badan ayuu diraaseeyay taasoo marka sifadaas la dhaxli karo taasoo saameyn ku leh marka waxay saameyn ku leedahay sifo walbo sifada kale ayay saameyn ku leedahay. marka maxaa laga wadaa warkaas marka aan fiirino waxay noqonaysaa sifada marka waxaa laga wadaa tusaale ahaan wuxuu diraaseeyay mid wuxuu ka diraaseeyay geedkan bee planting oo kale sifadiisa ay tall iyo shortiga oo kale tall iyo shortiga markuu diraaseeyay sidoo kale wuxuu kale tuu diraaseeyay flowerka midabka uu yeelanayo purple iyo white. marka laba sifo waa marka waxyaabahan kanna waa sifo midkan kalena waa sifo marka uu diraaseynayo marka waa laba sifo laakiin uu wada leeyahay hal geed. marka aan si fiirino waxaan fiirinaynaa hadda tusaale activity-gan ayaan ka shaqeynaynaa. arday activity-gan marka aan sharaxno waxaa idinka rabaa in aad ka shaqeysaan oo aad ka jawaabtaan su-aalaha la xiriira activity-ga. marka wuxuu ku leeyahay figureka soo socdo fiiri kadibna ka jawaab. figureka marka muxuu kuu soo bandhigaa wuxuu kuu soo bandhigayaa the second generation marka ay natiijada ka soo baxayso marka uu dhaco cross breeding oo ah dihybrid. dihybridka marka natiijada ka soo baxaysa ayuu kuu soo bandhigaa. waxaa dhacaysa marka geedkii inuu sameeyo bee plantiga self pollination asaga ayaa isbacriminaya geedkii. marka uu isbacrimiyo waxaa jira marka self pollination waaye haddii oo interfering lagu sameeyo oo faragelin lagu sameeyo kale self pollination ma noqonayso. marka self pollination ayuu sameeyaa live wuxuuna lahaa sifaadka uu lahaa marka maxaa waaye sambaliska yellow thread seed wuxuu lahaa marka iniin wadata midabkay wadataa marka midabka jaalaha ayay wadataa. sidoo kale geedka kale self pollination ka qayb qaata asagana wuxuu wataa green seed iniin oo maxaa waaye oo cagaar ah. marka sidoo kale sifadii koowaad waaye marka characterka koowaad waa iniinta waaye. iniinta marka waa iniin jaalo ah iyo iniin cagaar ah laba geed ka kala yimid ayuu wuxuu isku sameeyey marka pollination. isla iniinta ku guda jirnaaye iniinta mid waxaa waaye smooth midna waxaa waaye wrinkled. midda smoothka ah marka calaamadan ayaan u qaadanaynaa r halka midda wrinkledka ahna loo qaadanayo r small. tii hore r capital waaye r small. marka wrinkled maxaa laga wadaa markii uu geedka sidaas iniinta ay waxyaabahaas kuuskuuskaas ay leedahay waaye. smoothkana waxaa waaye iniin sidaas ah oo aanan lahayn wax kuuskuus ah. marka waxaa lagaa rabaa markii waxyaabahan crossing lagu sameeyo maxaa soo baxayo su-aalahan inaad ka jawaabto. marka aan fiirino su-aalaha su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad qortaa muuqsheega iyo hidasheega iyo muuqsheega. genotype micnaha waxa waaye hidasheega. tusaale hadda markaa soo qaadano marka aan leenahay shay tool ah marka aad tilmaameen tool oo pure ah
tall tt capital saan markaa dhahayna marka waa muuqsheeg waaye marka genotype waaye phenotype waxaa dhahaynaa qoraal ahaan ayaa loo sheegaa phenotype-ka tall ayaa leeyahay tall waa shay dheer waaye marka genotype iyo phenotype af Soomaali ahaan genotype wuxuu noqonayaa hidasheeg halka phenotype-kana uu noqonayo muuqsheega waaye marka waxaa laga rabaa marka inaad qorto oo aad sheegto hidasheega iyo muuqsheega parentiska ee hadda lagu soo sheegay ee la falgeli rabo oo cross breedingka lagu sameyn rabo sidoo kale waxaa laga rabaa inaad qorto genotype-ka ee gameteskooda parentiska ee yeelanayaan gamete ahaanta qaybtan waa marka gameteka genotype-kooda sheeg ayaa lagu dhahay marka qaybtan iyo qaybtan waa marka okay sidoo kale waxaa laga rabaa waxaad qoraysaa genotype-ka iyo phenotype-ka muuqsheega iyo hidasheega first generation-ka mid walbo waxa uu yeelanayo individual waxa soo baxay marka crossing la sameeyo waxa soo baxay muuqsheegooda iyo hidasheegooda sharaxaad ka bixi sidoo kale waxaa laga rabaa how many types of gamete can second generation parent produce meeqo nooc oo gamete ah ama walxaha isku dhacayo ama crossing lagu sameynayo ama taranka sameynayo ee uu yeelan karaa ayaa lagu dhahay parents and produce second generation-ka soo bixi doona parentskooda gameteska uu yeelan karo meeqa ayay gaarayaan su-aasha shanaad waxaa laga rabaa inaad sheegto marka second generation-ka phenotype-kooda in aad sheegto memberska meesha ku jiro phenotype-kooda in aad sheegto oo aad dhahdo tusaale ahaan green intaasaa yellow ah intaasaa wrinkled ah qoraal ahaan waaye marka sidoo kale waxaa laga rabaa in aad sheegto phenotype-ka ka muuqanayo xubnaha second generation-ka in aad sheegto ayaa laga rabaa su-aasha toddobaadna waxaa laga rabaa saamigalka ratioga green seedka inta uu ka yahay waxa soo baxay marka loo fiiriyo yellow seedkana ratiogiisa meequu noqonayaa green seedkana muxuu noqonayaa marka la fiiriyo second generation-ka marka waa inaad dhahdo tusaale ahaan ratio ahaan u sheegto green seedka intaas ayaa kasoo baxayso tusaale ahaan 1 2 inaad dhahdid yellowga intaas waaye 1 ayuu ka noqonayaa greenkana 2 camal inaad dhahdo tusaale waaye kaas waxaa laga rabaa marka seedka xaqiiqiga ah ee meesha ku yaalo iyo greenka ah iyo kan yellowga ah mid walbo ratiogiisa saamigalkiisa ayaa laga rabaa sidoo kale waxaa laga rabaa saamigalka uu yeelanayo mid walba oo smooth ah iyo midka wrinkledka ah iniinta wrinkledka ah iyo iniinta smoothka ah mid walbo saamigalkeeda ayaa laga rabaa marka la joogo second generation waxa soo baxay marka la fiirinayo mid walba saamigalkiisa ayaa laga rabaa marka arday activity-gaas inaad ka shaqeysaan ayaa la rabaa waxa usii gudbaynaa marka casirkeena qeybaha kale mendel marka wuxuu sameeyaa lay dhirtan biplantiga markuu uu tijaabada ku sameynayay experimentiga wax ka badan laba sifo camal ayuu isku darayay wuu tijaabinayay marka tusaale ahaan hadda sifada flowerka kalarkiisa midabkiisa ubaxa midabkiisa oo kale iyo seed colorka oo kale iniinta kalarkeeda oo kale kuwaasoo kale labadaas sifo ayuu wuxuu isla tijaabo ayuu ku wada sameynaya marka macluumaadka uu helay the data from these more complex and crossed showed that trait produced by the dominant factor do not necessarily appear together waxaa lahay marka macluumaadkaas usoo baxay uu arkay waxaa usoo baxay by the dominant factor do not necessarily marka dominant factorska ay xadidayaan do not necessarily appear together inay isla soo wada muuqdaan qasab ma ahan macnaha necessary ma ahan kulligooda hal mar inay soo wada muuqdaan tusaale ahaan hadda waxaan soo aragnay yellow seedka oo kale iyo green seedka oo kale
yellow seed iyo green seed waxaa dominantiga ahaa yellowga ayaa wuxuu ahaa dominant. haddana sidoo kale wrinkled seed iyo smooth seed sidoo kale waxaa smoothka ayaa wuxuu yahay dominant. marka labadooda hal mar smoothki iyo maxaa la dhahaa yellowgii hal mar inay isla soo muuqdaan oo kale qasab ma ahan macnaha. tusaale ahaan hadda green seed pod produced by a dominant factor could appear in a white flower bee plant. waxaa la marka exampleka waxa waaye bee plant oo leh flower white flowerka waxaa ogtahay barbelka marka loo fiiriyo inuu yahay recessive ayaa marka hal geed ayaa waxay ku wada taalaa white flower oo ah mid oo recessive ah. sidoo kale waxaa ku wada yaalo marka green budka marka la fiiriyo seedka waa iska dhaafeena budka waaye. green budka waa qolofka digirta ee ku dahaaran waaye. marka uu green yahay asaga waxa waaye dominant. marka green bud oo dominant ah iyo white flower oo recessive ah ayaa waxay ku wada yaalaan hal geed ayay ku wada yaalaan. marka dhammaan waxa inay isla wada noqdaan dominant qasab ma ahan ayaa lagu dhahay. Mendel marka concluded ayuu sameeyey wuxuu ku gabagabeeyey Mendel wuxuu ku soo ururiyey tajaarubta uu sameynayay ama tijaabooyinka uu sameynayay in waxyaabaha faktarada ama geniska asaga factor oo isticmaalay geniska mas'uulka ah marka individual characterka noolo walbo waxyaabaha factoriska gudihiisa ku jiro ee sifaadka mas'uulka ah ee characteriska uu yeelanayo noolaha mas'uulka ah in aynan ahayn kuwa isku xiran not connected kuwa isku xiran oo isa saameynayo in aynan ahayn ayuu sheegay. waa sifaadka kala duwan waaye macnaha sifaadka kala duwan ee uu yeelanayo noolahan. marka waxaa xusuusataa recall that the random separation of homologous is called independent assortment. maxaa waaye waxaa xusuusanaysaa in ay kala baxayeen homologous chromosomes labada isku wato unugyada ku jiray in ay sameynayeen separation oo weliba ah randomly qaab isku toosan aanan ahayn oo nasiib ah ay sameynayeen marka uu sameysmaayo gaar ahaan gametka marka ay sameysmayaan. marka separationkaas ay sameynayaan homologuska ayaa waxaa ugu wacan in walxaha geniska ah ama factoriska uu yaqaano Mendel ay kala duwanaadaan ay isku mid noqon waayaan. marka kala duwanaanshahaas iyo separationkaas dhacayo waxaa loo yaqaanaa independent assortment. waa kala bixid madax banaan waaye. marka waa kala bixid kala madax banaan waaye midba midka kale ay sifaad kala baxayaan iyo chromosoomyadii. muxuu ka dhacay marka law of independent assortment muxuu sheegayaa marka lawan wuxuu sheegayaa two or more genes assort independently in jiinada sifaadka sababayo marka ay yihiin laba jiin oo kale in ay kala madax banaan yihiin oo kuba ay u habaysan yihiin qaab kala madax banaan midna midka kale uu saameyn ku lahayn. This each pair of alleles segregates independently for any other pairs of alleles during gamete formation. waxaa la marka pairs of alleles walxaha hidaha sababayo ama marka la qoraayo ama la cabirayo waxaa loo yaqaanaa alleles. marka sifaadka walxaha sababayo marka la cabirayo ama geniska ayaa waxaa la alleles. waxay sameynayaan marka segregate independently si oo maxaa la iskooda ayay u kala baxayaan oo ay u kala fuqayaan oo ina kala gooni u noqonayaan. marka labadiiba oo beer waxay sameynayaan labadii chromosome ee isla socotaba waa ay kala fuqayaan. gaar ahaan marka goormee dhacay xaaladaas waxay dhacaysaa marka uu sameysmaayo gamete formationka ama xaalada meiosis ay dhacayso ayay ku kala baxayaan.
arday activity-gan ayaa lidinka rabaa in aad uga shaqeysaan qaab group ah buugiinana aad ku qortaan activity-gan marka waxa waaye B-plant ayaa marka waxaa lagu sameeyey crossing ayaa lagu sameeyey iyada oo wato barbell flower oo dominant ah iyo white flower oo recessive ah labadan hore usoo barateen fasalka form 3 marka ay kulmaan marka barbell flower iyo white flower waxa dominant ah barbellka sidoo kale isla geedka B-plantiga sifada labaad uu lahaa waxa waaye colorka green bud ayuu lahaa asagana green budka waa dominant marka loo fiiriyo yellow budka yellow budka marka loo fiiriyo wuxuu noqonayaa dominant markii la sameeyay marka pollination was carried out between two plants labada dhir oo maxaa la lahaa B-plantiga ayaa waxaa loo sameeyay marka pollination barbell green bodies and hybrid labada sifo marka ayaa waxaa la sameeyay in la sameeyo pollination marka kuwan ayaa waxaa la sameeyay marka sifaadkan B-plant leh ayaa hybrid la isugu sameeyay waxaa laga rabaa marka inaad su'aalahan ka jawaabto marka su'aalahan fiiri waa su'aalihii example-ka daay aad ka soo shaqeyno oo kale waaye in aad ka shaqeyso ayaa laga rabaa marka waxaan u gudbaynaa marka Mendel waxyaabihii uu ka dhahay low independent assortment-iga xeerkan and also applies to the inheritance of three more characteristics sidoo kale marka uu dabaqayay lowgan wuxuu ku dabaqay wax ka badan three more characteristics saddex sifo wax ka badan ayuu ku dabaqay oo uu ku sameeyay each characteristic of inheritance being independent from the other characteristic marka sifo walbana waa ay ka madax banaaneed sifada kale mid ka madax banaan ayay ahayd sida hadda kuwii tusaalooyinkaas soo arkeyna oo kale waaye badka iyo flowerka oo kale madax banaan sidoo kale wuxuu adeegsaday adeegsiga marka la adeegsanayo sifaadkan marka la isku dabaqayo crossing-ka lagu sameynayo haddii la adeegsado Punnett square waa lagu xali karaa balse waxay complicated ayay noqonaysaa marka Punnett square aan waa loo soo bandhigi karaa balse waxay noqonaysaa mid adag oo sax weyn oo ballaaran ay noqonaysaa marka waxay noqon kartaa ilaa waxay gaari kartaa 64 square ayay gaari kartaa si marka si loo dabaqo marka second generation-ka waa la dabaqaa marka loo Punnett square ayaa lagu dabaqayaa marka loo waa saxda way badanaysaa oo waxay noqonaysaa mid complicated ah marka waxaa la sameyn karaa qaab ka fudud oo maxaa la lahaa ka fudud ayaa jiro oo loo yaqaano maxaa loo yaqaanaa forked lines ayaa loo yaqaanaa forked lines waxaa loo yaqaanaa fork line waaye fork line meeshaas maxaa waaye fork line ayaa loo yaqaanaa habkan ku celis marka habkan kale waxaa loo yaqaanaa forked line ayaa loo yaqaanaa habkaas waa arki doonaa marka tusaalahana lagu dabaqaa marka aan fiirino waxaa cross pollination lagu sameeyey digir oo ah biyur iyo marka waxaa la isku beeray marka barbell flower iyo long stem iyo waxaa la fiiriyey smooth seed saddex sifo ayaa la fiiriyey oo midna ay tahay saddexdooda marna ay yihiin dominant marna ay yihiin recessive sidoo kale white flower oo recessive ah short stamen oo waxa afwan stamen oo waxa ah oo gaaban sidoo kale range seed oo ah okay mid oo recessive ah ranking dhammaan waxaa la marka xubnaan first generation were barbelled flower tall stem and smooth seed waxaa soo baxa marka qaybtii waxaa soo muuqataa lahayd dominantiga ahayd oo ahaa barbell flowerkii iyo tall stem iyo smooth seed marka aan fiirino sidaan waa qaab loo soo gaabiyey waaye ma aha marka forked line-ka saxda sidaa ma ahan balse waa la soo gaabiyey
marka waa kana asagoo maxaa la lahaa first generation la soo saaranayo qaybtan waa marka parent genotype waaye kuwaana waa gametiski waxaa ka soo baxaya marka first generationka waxaa noo soo baxay marka dhammaan marka waxa waaye dominant waaye laakiin heterozygote waaye waxaa u qarsan marka waxaa soo baxay waa kana phenotype-ka muxuu noqonaa marka dhammaan hadda genotype-kan ay yeesheen hidasheegooda sidaas ayuu noqday muuqsheegoodana muxuu noqonaa barbel flower sidoo kale long stem iyo smooth seed ayay noqdeen marka waa kaay qaybtaas marka waxa waaye first generation waaye second generation marka laysku dabaqo marka maxaa ka soo baxayo ma dhamaystirno marka buugga focal lines waa kana marka aan fiirino focal line-ka marka waxaa loo kala qaadaa saddexdii sifo barbalki iyo tool iyo maxaa la lahaa rinkiledkii saddexdii qaybood waa ka laakiin mid walbo waa qaab asagoo ah heterozygote waay waa sifo kala jaad waay marka kala jaad mid walba waxaa u qarsan waxa hadda ka muuqda oo phenotype-kiisa dhigiisa ayaa u qarsan marka waxaa u qarsan tusaale ahaan barbalka white ayaa u qarsan toolka waxaa u qarsan shorty rinkiledkana smoothka waxaa u qarsan rinkiled ayaa u qarsan marka ay falgalaan tusaale ahaan focal line waa kana focal line-ka marka maxaa dhacayo bda marka ratioga ay kusoo bixi karto marka aan fiirino b capital waxay noqonaysaa marka aan fiirino b capitalka ratioga oo uu ka yeelanaya waxay tahay 3/4 marka uu ku dhaco marka t capitalka oo iyadana ratiogeeda 3/4 iyo r capitalka oo ratiogiisa 3/4 dhammaan isku dhufasho ayaa marka la sameynayaa probability mid walba uu kusoo bixi karaa waxay tahay 3/4 mid walba probabilitygaas ayuu kusoo bixi karaa marka si aan u ogaano guud ahaan waxa ay ka noqonayaan marka waxay noqonaysaa marka waa isku wada dhufanaynaa dhammaantood markii laisku dhufto marka waxaa noo soo baxayo 64 27 oo loo qeybsay 64 guud ahaan waxa soo baxay probability waxa waaye 24 ayay waxay ka yihiin marka 64 ayay waxay ka yihiin 27 guud ahaan sidaas waay marka mid walbo marka probabilitygaas ayaa soo baxaya oo 27 ayay waxay ka noqonayaan 64 dhacdo oo dhici lahayd marka maxaa soo baxay waxa soo baxay waxay noqonayaan waxyaabaha inta kaaga muuqdo waa balanti oo ah barbal flower wato sidoo kale tool maxaa kaleeto la socdo smooth miya misrinki waa r capital maxay tilmaamaysay mida kale waxaa waaye marka roundigi waa round oo ah markay saan tahay xaaladda waxay noqonaysaa marka 27 ayay noqonaysaa probabilitygeeda oo loo qeybsay 64 kuwa kalena sidaas ayay noqonaysaa marka habkan oo dheer ayaa waxaa loo yaqaanaa focal line qaabkan in loo wado oo loo diraaseeya waxaa la focal line marka kan tusaalu noo ahaa waxaan soo gaarnay ardayay layliga casirkeena su-aasha koowaad waxay leedahay waxaa lagaa rabaa inaad sharaxaad ka bixiso law of independent assortment sidoo kale waxaa lagaa rabaa garden b-ga marka waa tanne waxa exercise in aad ka shaqeysaan la rabo barbel flower oo maxaa la dominant ayaa iyo maxaa lahaa white flower oo recessive ayaa maxaa lahaa iyo ayaa waxaa lala falgeliyay marka balanti oo sifadaas wato iyo sifo kale oo maxay tahay tall plant iyo short plant oo kala wata iyagana t capital iyo t small marka hadii maxaa la barbelka uu noqdo dhirti barbelki tall uu noqdo sidoo kale uu noqdo barbel iyo tall oo iswato oo geedka duu intaas ka soo baxo sidaasna uu yahay heterozygoska
waxaa laga rabaa inaad sheegto marka phenotype qaybta kalena markii labadan qaybood laysku cross gareeyo maxaa ka soo baxayo phenotype ka soo baxayo muxuu yahay ratiogiisa sheeg arday halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeenii maanta aan ku baranay law of independent assortment kulanti dambe oo xiiso leh